السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا هرمر مطبخا جنال أصحاب أخيار أحباب سو دوادا يعني دين الله هاي وجنال كيني هرمر مطبخا جوين كان بلعبه ونا ندين كبحي واندين عذر دارنا يا صور يعني دين الله هاي إن شقوين يو هولو يو سفرو يو الدنيو ayaan inta idinka maqnaa soo kala waday imika ayaan kasoo dhamaaday oo kasoo farabaxay alxamdulilah. idinkana ilaahay waxaan idinka barayaa intii aan kala maqnayn inaad khayr iyo nimco iyo barwaaqo ku sugnaydeen. adduunyo hawl lagama waayo haddii hawla jireenna ilaahay subxaana watacaala wixii hawla tirtahay noo fudaydiyo, wixii nimco iyo khayr aan haynana allah inoo siyaadiyo alxamdulilah. kolley halkaas ayaan kasii wadi doonaa channelkeeni imika wixii ka dambeeya insha allah intii ilaahay ka qadaro. soo dhawaada ayaan dilay mar kale like share subscribe xaqiina weeyaan. casharo tayada oo taxana ana xaqiiga weeyaan soo maaha insha allah ilaahay khayra ay noo fududeeyo insha allah wixii sharna raxmaanku ay naga leexiyo biidnillaahi kariim. caawa kulli halkan cashar cuntaa soo gelmaayo laakiin waxaan ka hadli doonaa kul haddii aynu nahay uun horumar madbaqaaga iyo wax cuntada iyo madbaqun ku saabsan in shay cuntada kamid ayaan soo qaadanaa. matalan bariiska ayaan soo qaadanaynaa. bariiska inaga Soomaali haddaan nahay waxaanu dadka ugu bariiska isticmaalka badan leh ugu bariis cunka badan leh ay dunida aynu ku jirnaayeen oran karnaa way dabaqeena ra'iisiga ee inaan ka daba hadlinba bariiska weeyaan. maadaama saa tahayna bariiska dee kolba dabaqaaga iyo yacni waxaad dheeliiska aad u isticmaashid laazim wixii dee kolba kusoo kordha inaad wax ka ogaatid waa muhiim soo maaha. marka bariiska iyo sida loo qasaasilayo waxbaa iska bedelay caalamka ha la ogaado. bariiskii awal aynu intaynu qaadno 5-6 goor meydhaynay wax ward baa ka daba yimid waxaa la yidhi bariiskii sidaasu kaafi kuma aha. culimadii nutritionka culimadii aan idhaahdo mawaad alqadaa'iya qofba siduu yaqaano culimadii nafaqada iyo cuntada intaasoo magac iyagaa lehe waxaan ku idhi waxay sameeyeen daraasaad fara badan oo bariiska lagu sameeyey kadib yacni tajribooyin badan oo la qaaday kadib natiijadii kasoo baxday waxay noqotay bariiskii in aanay kaafi ahayn intaynu maydhno yacni shawaa'ibta iyo turbada iyo sunteena oo sarniiqa saarana aanay intaasu ka jaraynin. marka waxaa la yidhi waxa ugu fiican oo la sameyn karaa waxay tahay in bariiskii la radiyo muddo dheer saacado badan yacni saacado fara badan oo bariiska la radiyo fawaa'id badan ayaa ku jirta. bariiska intaan la karin waa in la sii radiyo baa la yidhi inta ugu badan oo ah habeen dhammaystiran. qofkii saacado radiyana dee waa hadduu daruuri u tahay oo isaga dee waa baab kale. laakiin bariiska waxaa la yidhi inta ugu fiican uu la doonayo inuu radsanaado waxa weeyaan habeen dhammaystiran amba haddaad kii matal aad berito karinaysa waa inaad caawa sii radiso kii aad caawa karinaysana waa inaad aroortii radiso soo saas maaha saas bay noqonaysaa haddii la yidhaahdo. marka waxaan idin sheegaya bariiska saas inaad samaysaan waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo oo dadka qaar isweydiiyaan maxaa loo radinayaa. waxaa loo radinayaa culimadu markay baaritaankaa sameeyeen oo tajribooyinkaa qaadeen natiijada soo baxday waxay noqotay in bariiskii uu shawaa'ib iyo wasakh iyo sun sarniiq waa sun yacni dhulka ku jirta ciida ku jirta oo laga sameeyo suntana xasharaadka lagu laayo iyo laga sameeyo. marka waxaa la yidhi haddii sidiisaa lagu karsado sa anagu ku karsan jirnay awal yacni malaayiin qof oo dunida korkeeda dee joogto bariiska dee aada u isticmaasha ayaa waxa u sahlanaanaya inay qaadaan cudurrada ay si fudud u qaadaan matalan cudurka kansalka macaanka noocyadiisa kala duwan baalkan oo xanuunada mindhicirada caloosha ku dhaca yacni si sahlan halis bay ugu sugan yihiin si sahlan inay u qaadaan. sidaa darteed waxa weeyaan bariiskii waa in la radiyo si waxaas ay uga radaan uga maydhmaan. waxaana sheegayaan culimadu in marka la radiyo bariiska markii la tijaabiyey 80% waxaas ka maydhmeen 20 kalena dabka u daatay insha allah iyo gacanteena markaynu san ugu maydhayna iyo ayaa ka reebaysa. laakiin markay rado 80% bay yiraahdeen uu ka maydhmaya wasakhdaas waayo taasna
waa run oo imika maryaha uskaga hadaad ka goyn kari wadaad radiso amba weelka qaar uskaga intaad ka jari kari wadaad radiso dee ma xogaa kadib markaad timaado si sahlan buu kugu maarmaya waynu wada aragnay dabcan marka bariiskii waxa weeyaan fawaa'idiisii in la radiyo ku jirtay waa in ka hortaga xanuunadaas maadaama suntaas iyo shawaa'ibtaas iyo turbadaas iyo waxaas bariiskii ay ku qoloftiisa ku dhagsan yihiin inta yar la maydhaya waxba kama tarayso yacni markaad in badan in la radiyo ayaa uga faa'iido badan 80% maarmaysa inta kalena xoqida weeyaan insha Allah tacaala marka intaas ayaan idin sheegayaa bariiska iska radiya kaad habeenkii karinaysaan hadii la ka dhigo maxay aroortii sii radiya kaad maalintii karinaysaan habeenkii iska sii radiya insha Allah casharkeena ugu horeeyaan soo gelin doona hadii ilaahay ka dhigo waa bariiskan habeenkii radiyay oo la dabaatana duhurkii aan kariyay insha Allah iyo sidoo soo bixi doono hadii ilaahay ka dhigo saas iyo khair ayaan isku ognahay insha Allah isku soo noqon dambe